wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in Somaliland ay ku soo duushay dhulkooda isagoo ka digay colaad ka qaraxda deegaankaasi qadka telefoonka ee Garowe ayana goordhow ku wareystay. wallahi arrinta haddaan ka hadalno waxay anagu surprise been u raacay oo haddeer shantii iyo barkii anagu oo saaka ayaanu ka warhalayna ciidamada Soomaaliya ay soo galaan xuduudeedii يعني حدودنا ما هنا مدالين في كنترولكي تقرق بيننا هكذا بروفوكيشن أنا أقول حنكوها والله هاي سودريتي مدحونا فدرال جمهورية فدرال الصومالية حال عبد الله فرماتو ونبيني ومركا كيلو واحد تساكا ومساكا عنه هذا عيدا بغالب نقول هاي ودكنا عندنا تاك عن جبال كاسنا وأرلين بروفوكيشن أنا أقول سيئا أنه وشيء إنه هو international community مع عالم كرينتي سكلا نجفتو wax kala qarsoon hadda adduunka aan kaliya jecelnahay in la ogaado gabdhada inta lahayd in la ogaado provocationka wadiyaan saad la socotaan waxaanu ku hawlanahay oo dagaal kula jifaa argagixisada caalamiga oo buuraha ay ku jirta waxay tusaysaa marka saboor xaggooda ah isaas u muuqanaysa wasiirka warfaafinta Somaliland oo BBC u waramay wuxuu idinku eegay adiga iyo wasiirka qorsheynta ee dawladda federaalka inaad tagteen deegaano ka tirsan Sanaag oo aad halka dadka kicinayseen arrintaasi de socod siyaasadeed ma ahayn ninkay sheegayaan hadii Somaliland leeyihiin maaha oo anagana ku dhalanayay arrin siyaasadeedna ma ahayn arrin horumar iyo mashaariic bay ahayd Soomaaliya dhammaanteed meel joogtana waa wax looga baahan yahay waxay ahayd in la soo dhaweeyo wixii mashaariic ah oo dadka iyo shacabka iyo deegaanka u keenayo horumar ma aha in lagu jawaabo yani aniga leh ama dagaal iyo muxuu ahaa madaafiic lagu jawaabo macnu taamaha adduunkuna waa u jeedaan indhahoodu toos bay u qabanayaan wax hadda kala qarsoon dunida ma jirto arrintan hore ma uga wada hadashan Somaliland markii aad ogsoon tahay cadow kugu soo socda anagu haba yaraatay wax cadaawada idaan u helayo ma jirto waxaan la dagaalanaa oo cadow noo ah waa shabaab waa nimanka muxuu ahaa buuraha ay ku jira waa nimanka adduunka dhan ay la dagaalamayaan oo buurta galay oo habeen iyo maalin anagana difaac ugu jiro kan hadda saaka loo timi waa in kale oo surprise oo nagu cusub waa in loo arki karo adduunka indhiisana loo arki karaan in ay tahay sabor ama gacan ay siinayaan argagixisada caalamiga ee buurta ku jirta adduunkana waxaan ka codsanaynaa inay taas ogaadaan muxuu ahaa wixii halkaas ka soo kordhana Puntland cidna iyada aggression kuma aha cidna doonan mayso waa isku filanaa waan isdifaacayna insha Allah